أنا واحد اللي هارياق كسو هذا برنامج أذيك عيالك بقول طلق علي ما أنتوا حنك هذلنا أريمها كسابسن dadka ilaahay rumaystaan noloshooda halkan waxay la joogaan raxmo iimaan ku soo dhawaada raxmo iimaan waad maasanta raxmo su'aal baan rabaa intaan ku weydiin maanta oo ku saabsan ilaahay muxuu u rabaa inaa asaga aqoonsano waa su'aal aad u muhiim ah waxaan arkaa su'aashan inay daba socoto akhbaarkii wanaagsan aan ka soo sheekaynay yani inay silsilad isla xiriir yihiin oo waxa waaye waxay noo cadeynaysaa waxyaalo badan is furay wixii barnaamijkii hore aan ka hadalnay inay ku xirantaa arkaa waan ilaahay wuxuu rabaa inaan aqoonsano inaan ku kalsoonaano waa hadduu ilaahay marka hore oo noo abuuray jaceylkiisa oo dunida uu rabo inaan ku weylino wehelnimadiisii marka okay wuu ku abuuray ilaahay asaga wuxuu jeclaaday in adig wehel ku ahaatid adduunkan laakiin adig inaad fikirto maaha asagaa ku uumay oo dunida ku keenay kalsooni in anaga asaga ku lahaan ayuu ilaahay rabaa in aqoonsano waa haddii cunuga dhaho hadda ka soo qaada haddii hooyo cunugeeda dhashay oo cunuga uu fiirinayno oona yani ixtiraamayno oo aqoonsanaynin ama aabbo cunugiisa inuu jecel yahay uu fiirinayo oo wax kasta rabo inuu sameeyo oo cunugii aabbihii aqoonsanayno oo yani aqoonsiba rabin inuu siiyo ama uuna maxaa dhahnaa uu rabin aabbihii inuu ogolaasho oo aabbaha inuu ogolaado inuu aabba inuu wax fiican u sameeyo cunuga aabihiis uu jecel wax fiican inuu sameeyo jecel yahay haddii cunugii uuna arkayn aabihiis uu aqoonsanayn waa dhibaato aabbaha muxuu dareemayaa wuxuu leeyahay maama cunuga wax kasta u samaysa wax kasta u samaysa laakiin asaga ma fahmayo waxa uu sameynaysa ilaahayna wuxuu rabaa maadaama asaga jecel adduunkan jecel oo noo qabo anaga yani wehel nooga dhigday adduunkan asaga uu kaligiis uu joogi kare laakiin ma rabin inuu wehel naqan uu rabe hadalkaas taa u fahmay ilaahay dareen buu leeyahay ilaahay wax kasta ilaahay wuu dareemayaa asagii wuxuu noo samaysaday inuu anaga wehel la ahaano haddana ilaahay inuu wuxuu rabaa inuu dareemo in anaga asaga ku kalsoonaano hadda anaga asagana aan ku kalsoonaan weyna aan fiiri weyno oo yani wuxuu noo sameeyey aan dhagaha iska tirna aan fiirnin wax kasta naloo sameeya wanaag ah aan dhagaha iska tirna aan fiirinayn wanaagiisa waa wax la yaab ah sidaa la-adligeeda ataa yani tan waa muhiim inay dadka ogaadaan waxyaalo badan su-aashaas ay warsatay yani waxayna tusaysaa waxaa ka daba imaanaya jawaab badan ama siyaabo badana ilaahay ataa wuu noogu sheegay kitaabka qaduuska ah marka haddii hadda aan dhahno tan koowaad oo kale inaad fahanto sababta ilaahay ciise masiix kuu soo diray waa ilaahay wuu ku uumay wax kasta kuu sameeyey weli waa dareemi weyse dhib badana adduunkan soo maray wixii dhan laakiin markii dambe asagaa isku kaa muujiyey hadalkiisa kuu soo diray okay waa in horta koo ogolaataa ina asaga yani ilaahay wuxuu rabaa ina anaga ku kalsoonaano tan labaad waa inaad fikirtaa akhbaar wanaagsan wax kastaa lagu sheegay si kastaa lagu sheegay okay ilaahay muxuu kugu soo diray hadalkiisa tan kale asaga wuxuu rabaa inaad ku kalsoonaatid haddana muxuu kugu soo diray ciise masiix inaad fikirtid waay okay ilaahay muxuu kaa rabaa ilaahay wuxuu kaa rabaa inaad ku kalsoonaatid muxuu kaloo kaa rabaa waa inaad fikirtaa muxuu ciise masiix kugu soo diray su-aal badan halkaas su-aal waxay noqonaysaa 10 su-aala imaanaya qofka bini aadankan inuu fahmo waaye marka tan waxaa umaleynaa silsilad oo ku xiran waaye barnaamijyadeena hore laakiin qofka bini aadamka ma aha inuu iska indha tiro xataa tusaale haddaan soo qaadano adigoo waalid ah adoo aabba ama adoo hooyo ah haddaa caruurtaada wax kasta u samaysa cunugii hadiiduu kaa qaadana waa sii jeesanaa dantiisu raacana hadiiduu kaa qaadana sii laakiin cunugii waa ka xumaanaysa waa ka xumaane maxaa cunugii haya waa maasantahay aabbo waa maasantahay hooyo maba idhahaysid maxaa kugu dhacay ma fikiraya magsoon tahay intee ka badan ayaa ilaahaaga uumahaaga ilaahay ku uumay oo ku jecel nolosha rabo inuu kula wadaago oo ku arko udgoon iyo qurux kuu sameeyey oo agagaarkaaga oo intaasoo dhul qurux badan oo yani beer iyo uwax iyo nooc kasta oo yani qudaar iyo nooc kastoo bini aadamka u baahan yahay nolol maalmeedka iyo quruxda haddii la dhahona intaasoo ubax iyo wax kasto haddii bad la dhahana intaasoo wax nafaqa ku jiro badda dhexdeeda wax kasta kuu uumay waad ka fiican tahay waan fahmay raxmo iimaan weydina iimaan ilaahay muxuu rabaa intaa maxaad u malaysaa ilaahay muxuu u rabaa intaa asaga aqoonsana
Because he created us. He created us with love. He wants us to seek and love and trust him. waad mahadsan tahay ay raxmo su'aalo wax oo anoo wadi tusaalo ما هدي هدنا سيفير إنه هو أركي أوكي وافهمت إلهي محو أخبارك وناس كوكو صدره وهاي إلهي عيسى مسيح صدره هاد إلهي وكتابك قدوس وكوكو شيء وإنا فهمتي محا صابت عيسى مسيح لوكو صدره هاي ضد بدنا عيسى مسيح إنا أركي ضد كرمستي وأركان وأمانين وحكت السمين أنا أركي اسمي ضد كأمانه عجائب وذنا ضد كان عيسى مسيح مالك استوذ وعيسى مسيح ربي وسيدك وهاي أمانة حتى وحير أديها ما فكر مياه مسكح مليد مياه درين ير أكون فكرتد إلهي جاس وحير بالفيري أو قلو إلهي كلها بل أنية الصوفير وأنية محاكو أنت مح كلسوني ولا أنية إن أوت إنا كرباشت نبجز ما جعلت إلهي أنا ما أنا أقول إنساس لكن أسرع يمد أو عقاب كيسي كور كيسي كسارة ما قدر يكون بحي حبا هات أنا إنا فكرتد هاي صابتي oo ismasiix lagu soo diray ee ogolaa waa lagu yiri yaani maxay ahayd ee ogolaa oo yaani taladaada ilaahay saaro sameen haddana maxaa lagu xijiri waa ismasiix sama tan saddexaad maxay tahay waxaad aragtay dad badan oo ismasiix aaminsan maxaa u arka maxaa ugu dayin weysa maxaa u fiirin weysa lagu leeyahay maxaa yeelaya maxaad u malaysaa maxay dadka ugu dayin waayeen waxa yeelaya arrimo badan ay imaanayso waxa yeelayo isla weyni إنه أصلا كل شيء سوق الصنادين الدون كان كبيح كرا لبعضات الدون كان إنه لش وحفظ معه تنكله وحيي لا يعني برشيد النولي عفسد هذا وحيي لا إن مال آمن كجر إنه كنوا لها مالها وأمبدتك يعني نلش لقب صدا إني أقانون لهن وهذه أكتر صابت الدون كم هو دجارن تذكر جل أجره لكن تبادلوا مخلي وحجره أن قاعدين حديثي كستولوج أتلو تجي الله صفري أما قف اسكو مسؤولين نولشيسي نمعديس إنه كتجي أو إن أكل هذا بل قف كوريس إنه حرويس إنه كتجي أو إنه أبحي إنه وعديه أو أخبارك وناكسين جعلك إلهي دفك إنه جرسي حتى لجرسي وحفامي نجر برك إلهي سياو بدن وكل هذا ما ليس هذا بدن أو هذا الكوناكسين وجار أو فاهمين سيف عن منه هذا مو فاهمين وحودي ذا يعني ولي ما فاهمين إلا هاد وحلو ليه حتى سو إلى إنه تيسي كتاب قدوس كنا أول شيء إني أركان ضد ربي أمانة ويعني وحيالي ربي يسميه كم رقات فراي ويفهم جوين حتى وحلو ليه إنا أغبشه عد وياهي إنا أوجاتي وإنا عد وياهي وإنا أوجاتا حتى أوكي ما أقبل إنسان وإن إلهي وحر وإني أقبشيت وأكو قصبنت إني أقبشيت واي نلاش أدون كمان بيحكي كرتد إلهي وحر مركا وحو كنت صدق آمن له وحواي صار أنا كنت صدق كان ولا لا لين عاجد جوا هاليلويا ربي أضام ما هذله هاي وحير أتا إن يعني درين مليد ما إن فكرت إلهي جالس ساكو جعل ما رادسد أما فيرسد حتى ده ما إلهي محوق سميه حتى مريم أكله مريم مركي ربي أو يعني اسم مسيح هو يديسي يعني قبل ياري إهاد نبي أودونات نك أنت أروسين أتا إذا أتا بني آدم نقول كلا إهاد مرك أتكسر قاعدة إذا أتا محيطر مريم وكلا حاول وراها إن إسوسيد هدي واحد لو ديبه هدي واحد لو شيء إن آمنكم مهم وإن آمنت هدي واحد يري ربي أتا وحنا ناشيء qofka markuu oo aan gaaro oo dhaho waan aamina markaas asaga dhaxdiisa waxaad u malaysaa wax ma isbedelay wax weyn isbedelay markaas indhaha u furmay waa ruuxa qaduuska ka dhex shaqeynay markuu aaminka la yimaado way asaga kaliis ma waxa orda marka koowaad waxa way qofka inuu meeshu taagan yahay soo rido way isla weynida iyo kibirka isaan ahaan jiri iyo awowga isaan ahaan jiri ma awowga waa waqtigu noolaa inuu waxba helina laga yaaba inuu adiga qalbi fiicnaa laga yaaba inuu ka adiga wax ka jeclaa ilaaha laga yaaba waagas haduu heli lahay akhbaarka wanaagsan ina maanta adiga aad ku noolaan lahayd aad dhici kartay laakiin awowga haduu akhbaarka wanaagsan uu helin oo adiga nasiib u yeelatay inaa heshid oo ina ka fiirsataa oo maskaxdaada ka dhaadhacsiisaa ilaahay muxuu ka rabaa okay waa ina wax yar ataa raadisaa oo ogaata sababto ilaahay wuxuu ka rabaa inaa wax aqbashid waayo ilaahay wuxuu rabaa
cidda uu yahay inaa ogaatid inaa aqbasho cidda uu yahay inaa ogaatid sababtoo ah marka maryam ba arga ma maqlin maxaa dhacay malaa'igtii baa ku tiri ha baqin malaa'igtii baa ku tiri ha baqin maryanay waayo nimco ayaad ilaah ka heshay bal eeg waad uuraysan doontaa oo wiil baad umili doontaa magaciisa ciise la yiraahdo magaciisa ciise aad u bixin doontaa oo waxaad ku wiil baad umili doontaa magaciisana waxaad u bixin doontaa ciise nin weyn buu ahaan doonaa waxaana loogu yeeri doonaa wiilka ilaah ugu sareeyey Lukas 3:12 ha ahaatee tiri bal maybe shakinba shakiga wax fiican ma aha markii saas loo sheegay waa gabar yar markii loo sheegay rabbiyoos taada ahaato maba shakin shakiga wuxuu keenaa welwel ma dhici kartaa saan ma yeeli kartaa saan ilaahay kan ma yeeli karaa okay ilaahay wax ma yeeli karaa haddaad taagan tahay waa taada laakiin anaga ilaahay wax kasta waa awooda sababto shalayba asaa ku umay intaan noolaanaysa waa ogyahay intay dunida joogaysa waa ogyahay wax kastana waa waxa arta waa ku jecel yahay kan xun kan shartare kulli ilaahay waa jecel yahay laakiin ilaahay wuxuu rabaa inay aqbashid marka ma isku dayee adiga inay aqbashid marka su-aasha qofka asay u taalaa ma rabta inaa ogaatid jecelku ilaahay ku haayo waay ilaahay rabaa oo inaad adi aqbashid waay ilaahay kugu soo diray rabbi ciise muxuu ilaahay adiga oo markii hore muxuu kugu mi haddii adi rabin inaad adi dhegaysanaynin ama aad rabin inaad qaadatid hadalkiisa okay cunugaaga markaa dhashay hadduu ku dhihi iga aamus maxaa is leedahay maxaa u dhashay maa dheheeda cunugan maxaa u uumin adi ma uumin ilaahay muxuu ku dhaha maxaa u uumin qofkan magu dhaha ilaahay markasta waa jecel waxa rabta ahaw laakiin adi cunugaaga markaa canaanatid maxaa dheheeda waa mahadsan tahay barnaamijyaashii hore waxaan ka hadlanay akhbaarka wanaagsan intuu ciise masiix yahay adi marka oo rumaysadka qaadanaysi markii hore taa barnaamijka hore waa ku weydiiyey laakiin haddana rabaa haddii qof daawanaya hadda intaa u sheegtay sidee ahayd marka sidee ku rumaysatay ciise masiix iyo sidee u fahantay balaag adeeg may kugu ahayd waaba sax sababto ah hal mar adeeg ha kugu ahaato oo marka kugu horeysay bilaa anaga hore ma aqooninba ana hadda maba la yaabay qof dhahay yacni allah waxaan waa dhihi kartaa bin aadan aad tahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad laakiin qofku waxaa fiican qaladkiisa inuu saxo ama wixii waa diiday waa inay ogaataa marka dambe waay waxaan kugu soo noqonayaan ani marka koowaad way igu adkeed markii labaadan faxatan maxaa waay marka saddexaad laakiin waxaan dadkaan dhanba waa haystaanaysaan u ammaanayo bal maanta dhedhemi waxa jiro maxaa fahantay laakiin markaas marka oo balaawka maya dhahday marka kale wax maa jiro si kale u fahantay markaas waay sheegitaanka dadka oo ilaahay kusoo dhiibay oo yacni dadka wacdiya dadka hadalka wanaagsan akhbaarka wanaagsan geeya hadiye badanoo ilaahay kalsiiya qof kasta hadiyad kala noocay wataan waay horaa u sheegnay qofba kama sareeya qofna kama magaciis laakiin qof kasta si uu hadiyad u haystaa qofkan wuxuu sameeyey qof kale ma samayn karo qofkan wuxuu sameeyey qof kale ma samayn karo qof kasta qof kale wax ka duwan u haystaa mar qofna waa abuuraa qofna waa goynaa qofna oo ilaahay korismada iskale markii qof aniga marka waxaa laga yaabaa abuurka horeba inay igu jiro qofka aan diidaya sababta waa maqlay wixii waa igu hareen rabbiga wuxuu leeyahay wax yar hadduu kugu haro yacni waxaas ma baaba'ayo oo ammaanta ilaahay ah waad mahadsan tahay raxma daawayaal hadda fasax yar ayaan galaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamijka adiga ayaa lagugu talgalay meeshaan ku haarnay waan ka wadaynaa waad mahadsantihiin adaada ma hesho markaa rumaysadka qaadatay lacag aan mar hore gashtay ayuu dhex jira Because he created us. wax maa jiro si kale u fahanta markaaseed wax la shaabadaynayo He just wants to destroy everything. maxaad u malaysaa ilaahay muxuu u rabaa intaa raxma waad caafimaadee And I don't hate people because of it. dadka adaa oo akhbaarka wanaagsan loo sheegin aniga dhan farxadaan ku jira ruuxa qaduuska qofkan siduu ilaahay And the devil is the enemy of God. ma fikirin miyaa maskax marid miyaa dareen yar aa ku fikirtid balaawka maya dhahday wax maa jiro si kale u fahanta markaaseed walaahi dhibaatadan waxaan ku leeyahay dib u soo noqo
I got really sick at one point. waad xanuunsanaan jirtay adi markaa oo rumaysadka qaadanaysi daawayaal hadda waxaan kusoo laabanay barnaamijka adiga ayaa lagugu talagalay kusoo dhawaada raxma iyo iimaan kusoo dhawaada maasantahay adaa intaa fasaxa galin waxaan ka hadlaynay ilaahay muxuu rabaa intaa asaga aqoonsano hadda meeshaa rabnaa intaa ka wadna raxma waa aqoonsiga waxa waaye muhiim waaye ilaahay mar kasta haddii maanta aamini weysay oo beri kugu adkaatay beri dambe kugu adkaatay dhib ma laha ilaahay wuxuu ku hayaa 1,000 arrin oo adiga kugu badbaadinaya way jaceelku asagoo kuu qabaa saas ah maaha in adiga oo asaga kaa faa'iidaya waa asaga kula raba inaad meel fiican istaagdid inaad nolol fiican ku noolaatid inaad ka badbaadid adduunkan shaydaankiisa iyo wasaqdiisa iyo dhibaatadiisa iyo xanuunkiisa iyo sababta xanuunkaaga inaad dhaawaca ismasiix ku caafimaadda loogu talagalay marka ilaahay wuxuu rabaa inuu nagu soo jiido badbaadada iyo jannada u ballan qaaday sababta ilaahay marka hore ma rabin inuu hadalkiisa inuu ciise masiix waay ciise masiix isku tilaabta loogu qodbay oo kafaaro gud oo magdaadii oo u noqday wankii oo yacni waqlalkaagii taas ayaa kutusaysa jaceylka ilaahay taasoo ah in ilaahay ma rabi inaad dhuntid yacni in oo yacni nolosha weligeed ka baxsanaatid ama inaad yani meel xabis ku ahaatid ama nolosha ka dhacdid ama yani dhimashada marna waxaa ka dhimanaysaa yani nolosha waxaa ka dhimanaysaa qof nolosha ka dhacay oo guri haysanin oo yani shaydaan ku tunto inuu shaydaan kugu tunto ma rabo waa ilaahay shaydaanku kaaga raayay marka nolosha weligeeda ku siiyo waa inaad kasoo qayb gashaa ilaah familka ilaah iimana weydiina iiman maxaad u malaysaa ilaahay qof kasta intuu badbaado muu rabaa He wants us to get saved because of his love. I think that's the main reason that Jesus came to the earth. So he died for our sins so that we could get saved and to live with him forever. qof kasta daraadiis miya Yes, for everybody. For everyone. waad mahadsantahay iiman adigana raxmo ilaahay muxuu u soo diray ilaahay mar kasta wuxuu rabaa waxaan dhahay 1,000 arrin oo dadkiisa ku badbaadinaya oo yacni asaga jaceelku u qabo oo u haya 1,000 arrin ku haya maanta haddaa ka baxdid beri ka baxdid maalin le laba mar ahaato 10 mar diid maalinta 11aad ama maalinta 20aad qofka inuu aamino waa kii ku gacan seeray oo kitaabka ata saan u kala tuuray oo dhahay war annaga ha noola imaanin waxaan kaasaaba aaminka la yimid marka ilaahay xukumaa bini aadan asaa umay qalbigan asaa bedeli kara qof bedeli kara ma laha wax kastan waxaa waaye ilaah gacantiisa ku jirtaa wax shaydaanka iyo ilaah yani shaydaanka raysmada ma laha markasta waaba lagaaga raayay maadaama shaydaankii lagaaga raayay oo lagu siiyey dhiig xoolo lagugu nadiifin ya oo wanki ilaah oo wiilki ilaah isku talaabtaas adiga dartaada loogu qodbay oo inuu oo ka adkaado yani adduunkan shaydaankii iyo xanuunkii iyo dembigii wuxuu shaydaanka dhan qasay dhan in banaanka lagu tuuro xor ka naqatid waa lagu sii xurmadan adiga xur ilaahay ku sii meesha waxaa la yidhi meesha wiilka ilaahay ma xorriyada jirto marka waxaa waaye ilaahay ayaa xornimada ku siiya adaadaadii dadla shaydaanka ku xirnaana oo rabtid dhibaato dagaal ficil xanaaq isweynaysii hebel ku bood waa adduunka saasaa cimrigaa ku dhammaana waa xanuun iyo waayo marka dembiga la nooshahay dembiga naftiisa xanuun wato oo adiba fahmayna qofka bini aadanka ataa jirkiisa xanuun inuu ku jirna laga yaabaa ku tumashada shaydaankaaba xanuun ah sababta iyo beenta marka la sheegaysa iyo marka qof bini aadan dhib u geysiinaysid ataa waa xanuun iyo cafis la-aanta iyo qofka inaad dhibaato u geysa adan dhin cafi ama adina cafin ataa waa dhibaato marka waxaa waay ilaahay wuxuu u hayaa wax 1,000 arrin oo rabo inuu kaga fakiyo dadkiisa yacni ku asaga jaceyl u untay oo rabo inuu la wadaago adduunka inay ku noolaadaan oo ugu talagalay oo u diyaariyay meel fiican ku noolaadaan jannada ku noolaadaan
waxa qofka shaydaan waa waxa u diiday laakiin ilaahay markasta uu diyaar u yahay waa fiirnaa iyo imaw waa u taagan yahay waa faraxsan yahay wuxuu rabo ahaado kii sharta sameynaya ahaado kii dambiga ku nool ahaado mid kasta ilaahay waa cafisno ilaahay waa cafiskiisa waa wax ku adag ma aha waa jecel oo noo qabo hadduu jecelkaas uusan oo xagga geynin wiilkiisii oo xagga u geeyey hadalka ilaahay bini aadan laga dhigay oo la dhahay wankii ilaah oo lagu wanqalay waqla lagaaga dhigay wax kaloo bini aadanka lagu qanci karo ma laha maxaa rabtaa inta oo akhbaarka wanaagsan dadka oo inaa u sheegtay akhbaarka wanaagsan waa barnaamijyadii hore aan kasoo hadalnay waayo anaga ani keligay maaha qof kastoo maanta masiixi u yimaada wuxuu leeyahay xaq inuu qofka walaalkiis geeyay hadda maanta ilaahay deeq ku siiye deeqda guriga ma isku soo xiraysaa waxaa leedahay maanta gurigeyga barwaaqada adduunka ay buuxa may inaad dadka dariskaaga walaalahaaga ehelkaaga waa inaad deeqda u fidisaa laakiin haddii oo anaga balan baaba nala siiye rabbiga markuu sara kacayo daruurta saa waado yiri waxaad aragteen ama qasheen marka ruuxa qaduuska ni yimaado aad wax xoogaysataan adduunka taga meel meesha ugu fog geeya waxaad aragteen ka markhaati furteen akhbaarka wanaagsan anaga waxaa waaye wax naloo dhiibay inaan geyno qofka kale oo maqlin qof kastana waa ku waajib waa wax wanaagsan aa heshay nimcada aa heshay nolosha aa heshay wanaagga aa heshay cafiska aa heshay yacni adiga marka qofka ku xumay hataa in cafisid dhibaatada adduunku jirta cafis la-aanta waay waxaa waaye qof aad maanta dhib qof u geysto ka fuji may ani mausaa indhihi karaa anaa aqaan jawaabta u diraayo dhab jawaabta kan kale waa soo diray dhag marka waxaa meesha shaydaana ka talinaya marka in la kala nasto imaan cafis la-aanta dadka muxuu u geystaa if you don't forgive people that have hurt you, you just get bitter and it's a poison. You have to set yourself free and it's your own choice. And if it's hard for you, you can always ask God to help you. adigana taasoo kale waxa waaye qofka markuu qof bini aadan oo dambi ka galo ama asaga laga galo waa inuu asaga qaladkiis markuu xasuusto ilan maantaba labada qof oo isku dhaceen iska dheh gurigaaga aada waana isku marka xalis waa ina arrinta xalisaa ka shaqaysaa meesha taaganta inta qoraxda kugu dhicin waa ina u tagda qofkii saasana dhex martay ama anmaa kaa gardaran iska ka cafi أنا واحد ريما إن أدي قردان أنت أدني عفي أنا أكو عفي ماشي إني قرحة دي نيجود عين عليري أنت قرحة دي نيجود عين مال أنت وينس عفي سنة ربي اللي مرك عفيس كواب الداو وعفيس الآن توحي كيني سا يعني أدي قفك ولاك وكلا ديراني سين وحد إكرت إن جروب كلا بسوق لا ماشي وأديك صاحب كا أهل كا أسير صاحب كيس قلا دي ماشي لو كلا بحو أو لا maanta inay weynaato shaydaankii oo dhiso buur dheer dhiso oo la gudbi karin labada dhinac inuu buur dheer ka dhiso saana samaysmaa way qof markuu ku ximeeyo okay taas taadi waay sababta aniga culays iguma haysa adiga culays kugu haysa wuu ku ximeysa maaha okay aniga saas aha culayska adigu ku haya ani culays iguma haysa waa ku cafiye hore u soco ilaah laakiin muxuu ka dhahaa ooda mikasana عفيس الآن. اوكي عفيس الآن. اوكي ما تعودت. إلهي محوك لها عفيس الآن. عفيس الآن ما في على دواي إلهي ربي وحب بري حرتي سبب وحب بريد وحد حرتي وحد هذا ربي ونبر محوك سأتكنا. مركو وحيري أباي سمد كجرو مقعي قدوس هذا. ما روت نوقف لنا ما أنت نسي أو قامها عفينا سبب كشري بكوجو تابع. أنا قامها يجي عفي أنا قامها يجي عفيس أنا قدام بيجينا نجي عفي أنا جالس كوك قدام بيلا كو أنا قدام بينا قالي إني عفيا واي سبت أدي أباس ودم بيك عفينا هذا أدي كوك العفين مركو أبحنا عدا لما أكون عيني سادسة أنا ربي أنا كان نجي عفي أنا قال نساء أنا كان نجي عفيس أنا كو أدي كاج إن العفيا رسمة كاج مرك أدي العفيو أدي كاج أدي عفيسد أدي كاج عفيسد أبانا جناد كوجرن كاج عفينا يا دنبي أدي كوك العفيسي أنا كاج والعفينا لكن أدي كويك العفين أدي سيلا ورتيسا
had adigoo dembiga adoo kuwii qaamo adoo wax dembi qof u haysata ataa salaada ataa mustaagi karta way salaada ataa marka aad tukanaysid waa inaad cafisaa qofka adig ku qaamaysan aabaha markaas ku cafinaya laakiin adig qofka lagu cafis adig isoo ku cafin adkaaga ataa cafiskiisa ataa meelis برنامجي هراء حتى واحد هذا إلهي وراهي dadka kale waxa u jeclaataa sida oo adig kaliya isku jeceshahay taas oo kale miya waa ina qofka aan u jeclaataa sida adig ilaa wadin ma jeceshahay may ha dhibin dadka kale adig ilaa waxa sida ma jeceshahay may ha xaasidin tan kale waxa waa ilaahay xafiiska waa waxa uu muhiimsan way oo maanta anaga hadda meesha ka nimid ataa xafiiska ku yaryahay xafiis ma naqaanaba as cafina dheedheel waxyaalaha yar la iska cafiyaa arrimaha waaweyn ma bala cafiiba laakiin waxaan leenahay hadda daawadayaasha wax kasto weyn ma jiro qofka wax kasta weyn iyo yaraan dambi yar iyo weyn ma jiro waa isku mid in is cafiyo waa fiican tahay way adi kaaga hadda cafinayn adig ilaahay soo ku cafina taadi hadda daa wax cafin weysid jarabaada ku jirta shaydaanka ku sii jarabayna kan kale ku diiba marka ilaahay jarabaada naga kaxeeyal dhaha hadda wax cafisid jarabaad ma galisid itixaan kale ma u socotid haddii kale shaydaanka ku itixaama muxuu ka dhahay muxuu ku dhahay heblaay wars wax mu ka sheegay shakiga waa dhibaato miran way markaas marka ilaahay ma jecla kuwa wax dulmiya iyo kuwa aan dadka cafinin isku haleenta ilaahay wax ma nooga sheegi kartaa way ilaahay in isku haleysaa waxa isku haleynaysaa hadda ka soo qaad tusaalahan cunuga yar hooyis dhabka day ku fadhiyo amsa u haay hatta saa u ciyaarsiinayso uu ogyahay in hooyis gacmeedka fakanayna uu isku haleeyaa ama aabba hadduu cunugiis oo la ciyaarayo oo la babootinayo inuu hadduu rabo saa daba u tuuro uu ogyahay cunugaas gacanta aabiis inuu ku jiro oo dhulka dhaceen oo marna oo yacni isku haleen waaye oo weyn sida marka ilaahay aata anaga rabbigeen wuxuu leeyahay hataa isku hale sida ilmo oo kale sida caruurta oo kale waa ina ahaana ina aamina sababta anaga ilaahayna waa ina isku haleena ilaahay wuxuu rabaa sida caruurta dad tirahay aabba maanta baaskiiliisa haye wuu aaminay mar dambe ka fikiraya baaskiilka ma helaysaa ima weynaysaa shaki dhan maba soo galaya meesha haye hooysaan maanta haye shaki ma soo galaya waayo ilaahay wuxuu rabaa ina asoo isku haleeno markaan barino aabbow magaca rabbi ciisa kugu nimid abotan ay haysata abotan waay kida waay inaan la hadalno warsada waan siinaya barya wax kasta yani garaaca waan laga furaya wax kasta waan la siiyay ina afka furana waay uu ogyahay laakiin inaan warsano ilaahay rabaa marka waa inaan isku haleynaa haddii inta duufaan ka soo dhacdo allah maanta ma adduunka baaba'ay maaha adduun inuu baaba'ay rabbi gacantaada ku jira iimaan adigana sidee u aragtaa isku haleenta ilaah We should all rely on God because God doesn't change. He doesn't let you down. Just as the same way a child relies on his mother, we should rely on God. waad mahadsan tahay marka ilaahay waxa waaye wuxuu rabaa in anaga isku haleyno isku haleys kelima ilaahay wuxuu noo qabta ciidda ka badan ilaahay wuxuu rabaa inaad qadarisid wuxuu ku qabta ilaahay wax badan noo qabta waad mahadsan tahay laakiin waa kusoo laabanayna barnaamijka soo socda hadda intana ku eegeysinayna waad mahadsantihiin ani waxa la dhahaa riyaaq daawayaal waad mahadsantihiin waan kusoo laaban doonaa barnaamijka nolosha cusub emailkeeni waa kan ana la soo xiriira aad iyo aad u mahadsantihiin